soo dhawaada saaxiibayaal muuqaalkeena maanta waxaan ugu hadli doonaa tobanka dal ee ugu awood badan waqti xaadirka dunida ka jira. qiimeyntan ama xogtan waxaan ku fiirin doonaa xogta rasmiga ee laga soo bandhigay dalalkaas haddii aan lahayd ciidamada militariga ay haystaan, ciidamada militariga keedka u ah iyo hubka ay haystaan dalalkaasi. dalalka qaarkood ma soo bandhigaan ciidamada militariga ama si official ama si rasmi ah uma soo bandhigaan, balse waxaan eegi doonaa xogta rasmiga ee hadda la ogyahay. balse intaan muuqaalka bilaabin ha ilaawin inaad muuqaalka like garayso, channelkana aad subscribe dhahdo. mahadsanid. kaalinta tobnaad waxaa ku jiro dalka Talyaaniga. dalkan wuxuu leeyahay 165,000 oo ciidamo militari ah, sidoo kale ciidamada keedkiisu waxay gaarayaan 360,000. waa dal ka tirsan gaashaanbuurta NATO, wuxuuna leeyahay diyaaradaha dagaalka ee ugu dambeeyay waqti xaadirkan la isticmaalo. sidoo kale wuxuu leeyahay maraakiibta dagaalka. waana dal awoodiisa dhexdhexaad ay tahay marka loo fiiriyo dalalka ka awood badan ee waqti xaadirkan jiro. sanadada ugu dambeeyay dalkan wuxuu taageerka saarayay ama diiradda saarayay si uu soo saaran lahaa diyaaradaha droniska ee waqti xaadirkan dunida si weyn looga isticmaalo. kaalinta sagaalaad waxaa ku jiro dalka Turkiga. dalka Turkiga wuxuu leeyahay ciidamo militari ah oo gaaraya ilaa 350,000. tirada ciidamada militariga keedka u ah waxay gaarayaan ilaa 890,000. Turkiga wuxuu leeyahay ciidamo militari aad u ballaaran, sidoo kale wuxuu leeyahay gawaarida taangiyada oo aad u fara badan oo gaaraya ilaa 2,200. Turkiga sanadada ugu dambeeyay wuxuu sameeyay warshado u sameeyo hubka ama warshado soo saar hubka, sida warshada soo saarta diyaaradda Bayraktar TB2 taasoo gobolka si weyn loogu aaminay loona adeegsaday dagaalo fara badan oo dunida ka dhacay. kaalinta sideedaad waxaa ku jiro dalka Japan. dalka Japan tirada militariga ah uu haysto waxay gaarayaan ilaa 240,000. soo kale tirada militariga keedku ah ama ciidamada keedku ah waxay gaarayaan ilaa 300,000. dalkan tiknoolajiyada si weyn ayuu u horumaray oo wuxuu haystaa diyaaradaha dagaalka ee casriga ah ama noocyada ugu dambeeyay ah. dalkan wuxuu haystaa sidoo kale maraakiibta dagaal haddii ay ahaan lahaayeen kuwa burburiyaasha ah iyo kuwa kale oo gujisyada ah. wuxuuna ku fadhiyaa kaalinta sideedaad xagga kala sarreynta awoodda dunida. kaalinta toddobaad waxaa ku jiro xagga kala sarreynta awoodda militari ee dunidan dalka Faransiiska. Faransiiska wuxuu leeyahay ciidamo militari oo gaaraya ilaa 270,000. soo kale ciidamada keedka u ah dalkaasi waxay gaarayaan ilaa 470,000. dalkan qalabka militari uu haysto waxaa ka mid ah diyaaradaha dagaalka noocyada ugu dambeeyay. wuxuu haystaa maraakiibta dagaalka noocyadooda kala duwan sida markabka gujiska, maraakiibta diyaaradaha xambaaro. soo kale dalkan wuxuu ka mid yahay dalalka haysta hubka nuclearka. dalka xiga waa dalka UK. dalkan wuxuu ku jiraa kaalinta lixaad xagga kala sarreynta awoodda dunida. tirada ciidamada uu haysto waxay gaarayaan ilaa 140,000. tirada ciidamada keedkiisana waxay gaarayaan ilaa 2 milyan. dalkan wuxuu ku hubaysan yahay ama qalabka militari uu haysto waxaa weeye diyaaradaha casriga ah ama noocyada ugu dambeeyay diyaaradaha casriga. xagga ciidamada badda aad ayuu ugu dhisan yahay oo wuxuu haystaa maraakiibta dagaalka haddii ay ahaan lahayd kuwa xambaara diyaaradaha iyo haddii ahaan lahayd maraakiibta gujisyada. dalkan waa dal aad u yar balse ka awood badan dalalka weyn ama dalalka dad badan. kaalin shanaad waxaa ku jiro dalka South Korea ama Koonfurta Korea. tirada ciidamada militariga ee dalkan u diiwaan gashan waxay gaarayaan ilaa 600,000. tirada ciidamada militariga keedka u ah waxay gaarayaan ilaa 3.8 milyan oo ciidamo ah ama 3,800,000 oo ciidamo militari ah. dalkan qalabka militari oo aad ugu faana waxaa ka mid ah taangiyada casriga ah ama noocyada ugu dambeeyay ee taangiyada ah. sidoo kale dalkan wuxuu si weyn ugu faanaa ama ugu awood badan yahay dhanka maraakiibta xambaara diyaaradaha dagaalka oo wuxuu haystaa ilaa 1,500 oo markab kuwaas oo diyaaradaha xambaara. dalkan sidoo kale wuxuu haystaa gantaalada casriga ah kuwaas oo leh xawaare aad u sareeya. sidoo kale dalkan wuxuu si weyn ugu xoogan yahay dhanka hawada sare oo wuxuu haystaa nidaam difaaciyeed ugu dambeeyay waqti xaadirkan dunida laga isticmaalo. kaalinta afraad waxaa ku jiro dalka Hindiya. dalkan wuxuu leeyahay ciidamo gaaraya ilaa 1,400,000 oo ciidamo ah. soo kale ciidamadiisa oo militariga oo keedka ah waxay gaarayaan ilaa 5 milyan. dalkan wuxuu leeyahay ciidamo aad u fara badan haddii ay ahaan lahayd kuwa keedka iyo kuwa militariga ee hadda shaqeeya. soo kale dalkan wuxuu si weyn ugu xoogan yahay dhanka taangiyada oo wuxuu haystaa taangiyo gaaraya ilaa 4,200. soo kale dalkan wuxuu ku xoogan yahay dhanka badda oo wuxuu haystaa maraakiibta xambaara diyaaradaha oo gaarayaan ilaa 2,100. kaalinta saddexaad ama booska saddexaad waxaa ku jiro dalka Shiinaha. dalkan wuxuu leeyahay ciidamo militari ah oo gaarayaan ilaa 2 milyan. soo kale ciidamada militariga keedka u ah waxay gaarayaan ilaa 3 milyan. dalkan wuxuu ka mid yahay dalalka haysta ciidamada ugu farax badan. dalkan wuxuu si weyn diiradda u saarayaa dhanka qalabka badda oo hadda wuxuu si weyn u soo saarayaa markabkaas xambaara diyaaradaha dagaalka. soo kale dalkan wuxuu haystaa diyaaradaha dagaalka casriga ah ama noocyada ugu dambeeyay. soo kale wuxuu haystaa taangiyo aad u fara badan oo gaaraya ilaa 5,000 oo taangiyo. Shiinaha si weyn wuxuu diiradda u saarayaa horumarinta tiknoolajiyada iyo si uu u noqon lahaa kan ugu awood badan gobolka. kaalinta labaad waxaa ku jiro dalka Ruushka. Ruushka waa dalka labaad ee ugu awood badan waqti xaadirkan dunida. wuxuu leeyahay ciidamo militari ah oo gaarayaan ilaa 1.4 milyan oo ciidamo ah.
soo kale ciidamada keedka ah ama militariga keedka u ah waxay gaarayaan 3.5 milyan oo ciidamada military keed ah. dalkan waa dalka haysto nukliyeerada ugu badan waqti xaadirkan dunida. soo kale ruushka wuxuu ku faanaa taangiyada oo wuxuu haystaa taangiyada ugu adag waqti xaadirkan dagaalada loo isticmaalo. taangiga ugu adagna waxa weeye sida taangiga T14 oo kamid ah taangiyada aan si dhedheel ah lagu burburi karin. soo kale dalkan wuxuu si weyn ugu xoogan yahay dhanka badda oo wuxuu haystaa maraakiibta xambaarada diyaaradaha dagaalka kuwaas oo gaarayaan ilaa 4,000. soo kale dalkan wuxuu haystaa gantaalada hypersonic ah kuwaas oo iskaga kalgoosi kara qaaradaha. ruushka dhan walba ayuu ku xoogan yahay haddii ahaan lahayd dhanka badda iyo dhanka dhulka. soo kale ruushka wuxuu ku xoogan yahay dhanka badda wuxuuna haystaa maraakiibta gudisada waana dalka haysta maraakiibta ugu badan ee gudisada waqti xaadirkan dunida. kaalinta koowaad xagga kala sareynta awoodda militariga waxaa ku jira dalka Mareykanka wuxuuna ku fadhiyaa booska koowaad. wuxuuna haystaa dalkan ciidamo militari ah oo gaarayaan ilaa 1,200,000. ciidamada militariga ee keedka ah oo dalkan haysta waxay gaarayaan ilaa 2 milyan. dalkan si weyn ayuu u xoogan yahay dhanka hawada sare. soo kale si weyn ayuu u xoogan yahay dhanka badda oo wuxuu haystaa maraakiibta diyaaradaha xambaara oo gaarayaan 13,000. dhanka cirkana wuxuu haystaa diyaaradda F-35 oo kamid ah diyaaradaha ugu casrisan waqti xaadirkan dunida laga isticmaalo. Mareykanka wuxuu haystaa taangiye gaaraya ilaa 8,000. wuxuuna haystaa qalabka kala duwan ee badda ama maraakiibta kala duwan ee badda loo isticmaalo sida markabka burburiyaasha, markabka gujisyada, iyo maraakiibta kala duwan ama doonyo kala duwan oo loo isticmaalo dhanka badda ama dhanka dagaalka badda. waana dalka koowaad ee ugu awood badan waqti xaadirkan dunida.